kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii 205aad ee barnaamijka tubta nabadda. toddobaadkan dhegaystayaal waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa xuska maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka rabshadaha iyo muhiimadda ay maalintani leedahay. waxaa barnaamijka marti noogu ah Aamine Xaaji Cilmi oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed islamarkaasina ah madaxa hay'adda SSWC oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qaybgali doona Cabdikaafi Maxamuud Makraan oo isaguna ah gudoomiyaha dhalinyarada ee maamulka gobolka Banaadir. waxaa barnaamijka idinla socodsiin doona Faa'iiso Cabdi Warsame iyo anigoo ah Cali Maxamed Gutaale. hase yeeshee dhegaystayaal inta aynaan gudagelin barnaamijka balan si kooban u eegno muhiimadda ballaaran ee ay leedahay maalintan caalamiga ahi. sanad walba marka la gaaro 2 bisha Oktoobar waxaa adduunka oo dhan laga xusaa maalinta caalamiga ah ee joojinta adeegsiga rabshadaha, taas oo ku astaysan markii uu dhashay halgamaagii reer Indiya ee Mahatma Gandhi oo isagu ahaa hogaamiyihii dhaqdhaqaaqii xornimo-doonka ee dalkaasi. sidoo kale Gandhi waxa uu ahaa nin aad u diidan adeegsiga rabshadaha iyo gacanka hadalka. dowladaha xubnaha ka ah golaha guud ee qaramada midoobay ayaa 15 bishii Juun sanadkii 2007 waxa ay isku raaceen qaraar lagu jidaynayo xuska maalintan caalamiga ah ee 2 bisha Oktoobar oo ah munaasabad xambaarsan fariin ku aadan joojinta rabshadaha iyo gacanka hadalka, sidoo kalena shucuubta adduunka lagu gaarsiinayo mabda'a ah in la joojiyo rabshadaha iyo gacanka hadalka, taas beddelkeedana lala yimaado dhaqan ku dhisan nabad, dulqaad iyo isqancin. sidaa darteed maalintan caalamiga ahi waa maalin aad muhiim ugu ah dadyowga adduunka oo dhan, gaar ahaana dalkeena Soomaaliya. mahadsanid Guutaale. ugu horreynsi aan barnaamijkeena ku bilaabo Aamine Xaaji Cilmi oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed islamarkaana ah madaxa hay'adda SSWC oo ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed. waxaana ay Aamine ugu horreyn ka jawaabaysaa su'aal ku saabsan muhiimadda maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka rabshadaha iyo sida ay muhiim ugu tahay Soomaaliya joojinta rabshadaha iyo adeegsiga gacanka hadalka. waxay muhiim ugu tahay sida ay ummadda kale oo dhan muhiimka ugu tahay way muhiim ugu tahay maxaa yeelay nabad iyo nolol waa la isku xiraa. Soomaalidu waxay tiraahdaa nabad iyo caano waa. marka waniba waxaa la yiraahdaa oday xigmad leh nabad iyo caano waa maxay isugu daraysaa nabad waa ma iska tiraahid haddii nabad la waayo caano la heli maayo. marka muhiim bay u tahay ummadda Soomaaliyeed. Soomaaliya intii aysan civil war ku ka dhicin Soomaaliya horu marayso jaamacado laho isbitaalo laho dhaqaale laho waxa ka soo baxa dalkeeda ayadu ku filan yihiin oo horumarsan bay ahayd. waxaan hubaa haddaan nagu dhicin dagaalada iyo colaadu maanta inaan joogi lahayn barwaaqo sooran inay Soomaaliya ahaan lahayd. maxaa yeelay marka laga hadlayo natural resourceska ilaahay baxsho hodan buu ilaahay nooga dhigay. marka laga hadlayo human capital oo dadka capital resourceska laga hadlayo humanka ahna ilaahay wuxuu nooga dhigay hodan oo qof kastoo Soomaaliyu meeshuu tago wuxuu ka yahay qof waxtara. marka waxaa la kala fogeeyay dadkii waxtarayay iyo maxay dalka ay ka taran lahaayeen. marka waxay uga dhignaan lahayd haddaan maanta 30 sano colaadu ku jirno aan dhismayno maanta magaalooyinka caasimadda adduunka ugu magac dheer bay ka mid noqon lahayd Soomaaliya. sidee marka Soomaaliya looga hirgelin karaa dhaqan ku dhisan nabad, isfaham iyo dulqaad, sidoo kalena looga gudbi karaa rabshadaha iyo gacanka hadalka? waxay ku noqon kartaa Soomaaliya horta waxaa la rabaa cadaalad. waxa marxaladaha la soo maray stage-ka Soomaaliya soo martay marxaladahaas oo ah dagaal sokeeya dhacay. qof walba qorgii buu qaatay, nabadii baa luntay, waa iska riday, wixii ka soo horbuxo ku dilay. waxaa dad baa geliyay waqti iyo maxay maskax iyo maanba geliyay. ilaahay baana marka awoodda wax kasta mahadda ilaahay baa la siiyaa. baa mahadda iskale ilaahay baa ku galadeeyay. dowlad baa la soo dhisay. marka waxay u baahan tahay dowladnimada horta cadaaladda wax walba waxay u tahay hoggaanka cadaaladda u ah. haddii ratiga hoggaanka lagu hayaa xaamaha ay mudahayaan wuu cabaadahayaa ma wararka ma hayn karo. marka Soomaaliya nabada waxaa lagu heli karaa maamulada dhismaa inay cadaalad yihiin oo hoggaanku uu cadaalad u yahay. hoggaan cadaalad marka la helo nabadu waa soo baxaysaa. qof laga baryayo male ilaahay baa laga baryayaa oo loogu xamdinaqay. laakiin
Soomaaliya waxaa ka maqan hoggaan cadaalad ay u baahan tahay lala wada shaqeeyo dadku waxay rabaan inay noolaadaan bay rabaan markaad inuu noolaato rabto waxaad ku noolaan kartaa meel aad cadaalad ku heli karto oo xaqaaga iyo xuquuqdaada aad ku heli karto meeshaas marka waxaa la rabaa inaad adiguna meesha kabto oo dhisto meeshuna adiga ay ku kabto markii cadaalad la helo dadku waa isku imaanayaa laakiin haddii cadaalad la waayo waa la kala cararaya qofkii madax laga dhigaa hadduu asagu ku fakero kan dil kan cayri kan qabo adigu dhiso ehelkaaga u yar hal si kala fogaanay wixii lagu kala tagay waxay ahayd dhibaato marka waxaa la rabaa cadaaladdu inay ka unugto waa markaan ka hadlayno dowladnimada way aragta Soomaaliya waxa fiican waxay tahay qof kastoo Soomaali maanta nabad buu rabaa maxaa yeelay waa la arkay nabad la'aan waa soo aragnay nabadii marka waxay noogu imaanaysaa in la ismaqlo la is aamino anigu waa inaan aaminaa qofka mas'uulka ah oo madaxda ah waxaan ku aamini karaa cadaaladda inuu asaguna aamino ku shaqeeyo marka tuhunka iyo mashaakilka iyo cadaalad darrada iyo xaq darrada iyo boobka iyo mushkiladda waxa keenaya waa cadaalad la'aanta ugu dambeyn maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si dadka Soomaaliyeed ay u noqdaan kuwo nabad ku wada nool wax kasta oo khilaafaad ah oo jirana ku wada xaliya dariiq nabadeed Soomaaliya waxay lahayd laba arrimood waa khilaafka Soomaaliya maxay to markii khilaaf ku dhaco waxana maxkamadaha iyo qulaada iyo baa lagu xallin jiray waxna waxa lagu xallin jiray si dhaqan traditional mechanism baa lagu xallin jiray dhaqankii baa lagu cayaaray dhaqanka waa lagu dheelay Soomaaliya waxa looga dheelay dhaqankii waxa la sameeyay dhaqan fake ah waxa la baray dhaqankii dhibaata la bar waa la jiriyay waxay u baahan tahay horta in la daaweeyo qofka dhakhtarku hadduu isagu caafimaad qabo wuxuu ma daaweyn karo waxa la rabaa dhakhtar health inuu soo fariisto patientkiisa uu daaweeyo dhageysto waxa naga jiran oo cudurkii naga galay dhaqankii uu galay dhaqan feegaha la sameeyay haddaad dhaqanka Soomaaliya nimanka koofiyada hadda sito cimaamada wata qaarkood ma rabaan dadka inaan afkooda mariyo gadaal haddaad ugu laabato background-koodii waad qaracmaysaa waxa ka jira marka hal la kala saaro waxa la rabaa marka waxa Soomaalidu waxay tiraa gacantii daahiraha wax daahirisa marka waxa la rabaa in la kan runta ala sooco oo feega dhinac la iska mariyo feegu waa wax mushkiladda si abuurahay dadkaanu ma arag dimuqraadiya wax la yiraahdo ma arag waxa mar u talinayay dawlad military aan ku koray aqligeeyo ku koray dawladda militariga anarkaan noogu xigtay oo qof walba qorgiisa shacabku marka kuma korin meesha Soomaalida dhibka kale nooga jira waxay tahay xuquuqdeeda ma naqaan in la dilo waxaan u haysanaa xaq in la ku leeyahay in la xiro xaq baan u haysanaa inaan waxba naloo qaban canshuurna la ka qaadan xaq baan u haysanaa marka waxa la rabaa shacabkan in la educate gareeyo oo leeyahay adinka in la idin dilo xaq ma dawladda waxaad ku leedihiin jid aad martaan dawladda waxaad ku leedihiin biyo nadiif ah cabtaan dawladda waxaad ku leedihiin nabad aad ku hooyataan dawladda waxaad ku leedihiin isbitaal in la sheego baa la rabaa ma oga shacabka xuquuqdooda ma oga markoona wareegta loogu talin jiray markii xigayna waxa loogu talinayay qorigaana haystay haddana waxaan ku jirnaa iska daba wareeg baa saa loogu jiraa aad bay u mahadsan tahay taasina dhegeystayaal waxay ahayd Aamina Xaaji Cilmi oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed sidoo kalena madax ka ah hay-adda SSWC oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho waxaana weli inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijka hase yeeshee balan markan u gudubno Cabdikaafi Maxamuud Makaraan oo isaguna ah gudoomiyaha dhalinyarada ee maamulka gobolka Banaadir waxaana uu Cabdikaafi ugu horeyn ka jawaabayaa su'aal ku saabsan sidii dhalinyarada loogu abuuri lahaa jawi ammaan ah kaasoo u suurto gelin kara inay dhalinyaradu si nabada uga wada hadlaan mustaqbalkooda iyo sida ay uga qayb qaadan karaan horumarinta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. waa maasan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa lambarka ugu badan bulshada leeyihiin awood ka badan qeybaha kale ee bulshada waxaa lagama maarmaan ah in dalkeena looga faa'iideeyo awoodda waxqabad iyo hab fikir ee dhalinyarada sida ilaalinta nabadda ka fogaanshaha carqaladaha xasiloonida iyo adkeynta danta guud haddaba dhalinyarada gobolka Banaadir waxay diiradda saaraysaa sidii loo heli lahaa dhalinyaro iyo bulsho isku xiran meelna ugu soo wada jeestaan dhibaatooyinka ka dhaca isla markaana si isku mid ah uga wada jawaaba sidoo kale waxaan xoojinaa ka hortagga iyo ka dabatagga
ciddii carqalad ku ah xasiloonida caasimadda ummadda soomaaliyeed. dhalinyarada gobolka banaadir mar walba waxay u taagan yihiin in dalka inuu ahmiyad u leeyahay. sababto annaga hadda dhalinyarada gobolka banaadir waxaan u ahay mas-uul guddoomiyahoodaan ahay. waxaa ii diiwaan gashan 8,950 dhalinyaro ah oo 17 degmo iiga diiwaan gashan. waxaan samaynaa marka maalmaha axad oo kale waxaan u yeernaa 150 dhalinyaro ah. waxaan iskugu keennaa xarunta dhalinyarada gobolka. waxaan tusnaa nabadda iyo horumarka ay leedahay. waxaan ka tusnaa dhalinyarada waa xoogga dalka. waxaan ku dhalana burbur, waxaan ku dhalan dhibaato. waa inaan ka fikirnaa jiilka annaga aan dhalna carruurteena si ay waddan nabad xasilooni ah ay ugu noolaan lahaayeen, mustaqbal fiican ay u yeelan lahaayeen, waddan caafimaad leh, waxbarasho leh, nabad la isku haleyn karo. maanta aan dhihi karno carruurteena aynan welwel ka qabin sida annaga hadda aan wax usoo baranno. waa dareemi kartaa dhibaato badan waddankeena 27 sano burbur iyo dagaal ku jiro. runaantii waxaa ku guulaysanay annagoo haddaanaan dhalinyarada gobolka banaadir inaan xoojino xiriir ka dhexeeya dhalinyarada iyo ciidanka. cabdikaafi, marka nooga waran dadaalka aad ugu jirtaan sidii dhalinyaradu ay u heli lahaayeen xuquuqdooda, maxaase ka mid ah caqabadaha aad la kulantaan? runaantii horta kaalin markii la dhaho waxay ka qaadan karaan kaalinta ugu muhiimsan. sababtoo annaga hadda waxaa la 75% dalku waa dhalinyaro marka Soomaaliya guud ahaan la fiiriyo. 75% marka haddii awoodooda iyo xoogooda laga faa'iideysto waxay kaalin ka qaadan karaan 100% in dalkan oo nabad noqdo. in yacni dhalinyaradii iyo ciidankii marka isku xirmaan, awooddii la xoojiyo, kulamo loo sameeyo, kulamadaas oo isdhexgal ah oo su'aalo lagu weydiinayo ciidanka, xiriirka ka dhexeeyo dhalinyarada iyo ciidanka oo aan rabno hataa inaan ku qabano degmooyinka aan u qabana hataa degmooyinka iyo ciidanka aan isku keennay ay wada hadlaan. waxyaabahaas oo kale waxay ka qayb qaadan karaan dhalinyarada in awoodda iyo amniga inay kaalin door muhiim ah ka yeeshaan. marka dhalinyaradii waxaan ka shaqaynaa in ciidankii ayaga kalsooni aan dhexdooda ka abuurno, inay isla falgalaan, inay isla shaqeeyaan, inay xogta isiiyaan si waddankeena nabad u noqdo, dhalinyaradan ee si qurux badan ee yacni runaantii ugu fududaato. 17 degmo waxaa ka wadnaa barnaamijyo badan oo ku aadan wacyigelinta. wacyigelintaas waxay qayb ka tahay sida nabadda ugu qayb qaadanaya dhalinyarada, sidii dhalinyarada hal abuur ula imaan lahaayeen oo ku aadan sida amba ganacsiyada yaryar sida hal abuur loogu sameyn lahay, in skillska computerka oo kale xirfadda computerka la baro, in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo hal abuurka ay la imaadaan oo ah inay wax soo saar leeyihiin. aan ognahay dalkeena Soomaaliya dhalinyaro fara badan inay fikrado inta la imaadeen ay ka shaqaysiyeen, fikradihiina ay ku guulaysteen. marka keliya in dhalinyarada la dhiirigeliyo ayagana wixii markaas isdhihi karno oo laga maarmaan ah in annagana aan u qabanno. aad buu u mahadsan yahay dhagaystayaalkaasina wuxuu ahaa cabdikaafi maxamuud makaraan oo ah guddoomiyaha dhalinyarada ee maamulka gobolka banaadir. markana dhegaystayaal aan eegno dhinacii wararka barnaamijka. wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa la kulmay wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle. wakiilka iyo wasiirka ayaa si gaar ah uga wada hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin taageerada dib u habeynta dhaqaalaha Soomaaliya, taas oo horseeday dhammaystirka mashruuca hibig oo ah guul weyn oo laga gaaray khafiifinta amaba yaraynta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ee UNDP ayaa tababar isugu jira hagid iyo tusaaleyn siisay howlwadeennada wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya, kaas oo ku saabsanaa kabadqabka cudurka COVID-19 marka lagu guda jiro kulamada xalinta dhibaatooyinka, hagaajinta iyo waxqabadka. waa tahay dhegaystayaal, markana annagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeenna bal aan u bayrno dhinacii maaweelada. aan ku yaranasanno gabay ku saabsan qiimaha nabadda oo uu inoo marin doono abwaan cali deeq maxamed xaashi. hadraawow anugu duluc ku naqan nudaha suugaanta soomaalida islaax baynu naas ugu nasteexaynta dhaaxaan niyeystoon ku taray tala nadiireede dhaaxaan naqdiyey xumaha oon khayr u naadiyaye dhaaxaan naxwaha ugu sharaxay baahi nabadeede dhaaxaan nasiinada in badan naadirku ahaaye miilaalan naasaha godloo soo noqnoqoteeyey
balliyada nawaaxiga xareedoo ningaxa joogta naacawda saxan saxada waa lagu nashaadaye dhulkoo nuray dhir iyo ubax ku nabadnaqiya suugaanta nimcooley ku dhogorgoosatiyo maqasha nuugaysa nirgiya weylo nayliya waxaroo neefafka adduunyo nacfiga u macaan caanaha lagu najaaxaye nafaqadana subag laga lushaa la isku naaxshaaye nabaadkaas barwaaqada ku laran noocba yahay nooca naftu waxay jeclaataa inay nabad ku joogtaaye kolse haddaan ammaan lagu nagaynaa la waa ebere sida nibiriso waxa u liqa nabad la'aan maaha nugul lagama maarmaanaho naadiraa jiraaye wadnahaba nataaqadu intay nuda waxyeelayso nuuxsigiisii hadduu sooba noqon waayo qofkii dhiigga uu nuujin jiray naxashka weeyaane sidaa nolosha ugu baahannahay nabaddu sow maahan aad buu u mahadsan yahay abwaan cali deeq maxamed xaashi oo inoo marinayay tixidaasi gabayga ah waxaan intaas noogu dhammaaday barnaamijkanii tubta nabadda oo toddobaadkan mar kale ay idinla socodsiinayeen cali maxamed guutaale iyo anigoo ah faa'ise cabdi warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiinna idinkoo noogu soo hagaajinaya barta aan ku leenahay facebook oo ciwaankeennu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambaysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada idinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhagaysanaysaa